السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوداش هذا قيمة يقايها لو دلهانتي مملكة سواتشوكتان هل كان وتلفزيون مدح بنان برشتي في حرنتي سجود مقالة هرقيسة داود يلوح على سوق قاري عمتي أنا هذا ركلا وروحي دلكي دبد بنجا سوق قاري أنا هو ديدي كسو باهنو وركنا وحاول ديارو دل السعودين دونا هدي الله ودلد موانيق عبد الرحمن عبد الله محمد فانتاستيكا قد بدأ داود يلورر كنا وجودور كورونا وحكمدا gudoomiyaha xisbiga talada dalkan haya kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku gacan sayray natiijada ay maalintii shalay tola ay soo saareen gudidii hageysay shirweynihii saddexaad ee xisbiga talada dalkan haya kulmiye xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya maayirka koonfurta magaalada London oo isagu maalmahanba booqasho ku joogay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa maanta dalka dib uga laabtay isagoona telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV uga xog waramay waxyaalihii kala duwan ee uu ku arkay dalka intii uu joogay haweeneyda madaxweynaha ka dalka Malawi ayaa ku gacan sayday doorashadii toddobaadkan ka dhacday dalkaasi iyadoona sheegtay in lagu shubtay doorashadaasi wadamada Russia iyo China ayaa ku gacan sayray qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku doonayaan in tacadiyada ka dhacay dalka Syria lagu wareejiyo maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ICC Daawud alkuwaasi waxay qodobada wararkeena ugu door korona hatana ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan gudoomiyaha xisbiga talada dalkan haya kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku gacan sayray natiijada ay maalintii shalay tola ay soo saareen gudidii iyagu hargeysay shirweynaha saddexaad ee xisbiga talada dalkan haya kulmiye sidoo faahfaahinta warkaasi uu noogu hayo wariyahayga Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi hoggaanka sare xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa maanta si jireed ay ku qabteen xarunta guud ee xisbul xaakimka kulmiye waxay gaashaanka ku dhufteen isla markaana ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalkii shalay ka soo yeedhay gudidii hageysay shirweynaha xisbiga talada dalka ee kulmiye isla markaana ay ku shaaciyeen liiska ergada golaha dhexe iyo tafulinta ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo shirka jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay in shir gudoonka hagaya shirweynaha ay awoodoodu ku koobnayd inta uu shirweynuhu soconayay isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan umada ka uga u qeexi doonaa warkii shalay ka soo yeeray shir gudoonkii shirkii golaha shirweynihii saddexaad ee xisbiga ee dhamaaday hadal shalay saxaafadda ka soo daayeen iyo go'aamo ay iyagu ku kooban oo soo daayeen waxaan doonayaa inaan caddeeyo inaan sharciga xisbiga meel ka waafaqsanayn qodobada ay ka hadleen badankoodu may ahayn wax shirki soo qaaday iyo go'aamo shirki leeyahay sidaba shir gudoon shir weyne wuxuu shaqeeyaa awood leeyahay waa inta shirku fadhiyo Mujaahid Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye waxa uu sheegay in gudidan laga sugayay in ay soo ururiyaan isla markaana ay soo gudbiyaan go'aamadii shirweynaha ka soo baxay iyo in ay soo gudbiyaan liiska golaha dhexe waxaana sidoo kale gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi uu shaaca ka qaaday in ay jiraan xubno wasiir ah oo kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo tan iyo intii xukuumaddu jirtay waday faragelin ka dhana xisbiga talada dalka ee kulmiye وسيدو هذا الكود جاي سوق شرح ينا وحويده. مركو شركة حرمي وحلاقة سواي إيه قامة شركة أو ده ويدين وده وين صحافة دي أدو خلق داون أي صو الرياح وحكروا أنا قارو القاضي دوبيهان ما دام أنا اللي استدي قرار حسوه يعني وهذا مش الكسوه يتو إن صو الرياح iyadoo loo raacayo shirka xisbiga sharciga xisbiga soo dhigayo ka bacdina ay noo keenaan yatara aan hubino inay sharciyada waafaqsan khilaafna aanu ka jirin waxaan doonayaa cadeeyo
xukuumadda waxaa gudoomiye oo ah xukuumadda madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada xisbiga laga doortay madaxweynaha wax arrin oo intaan isku diiday ma jirto ixtiraam badan oo haya mana qabo inay xumaanay xaggiisa kaga imanaysa xisbiga ma aha erey siyaasiya ma aha mid kale u qanacnayo waa dhab laakiin waxaa jira golaha wasiirada rag badan oo ah oo 4 sanadoodba ka dhaxwada xisbiga iyo xukuumadda khilaafa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane mujaahid maxamed kaahin axmed ayaa waxa uu ka hadlay liiska ay shalay guddidaasi ku dhawaaqeen isagoo sidoo kalena halkaasi ka akhriyay dastuurka xisbiga arrintan waxa uga yaala jeer xisbi kasta kulmiye ama midka xisbi kalaba waxa uu ku dhaqmaa waxa weeye waa dastuurka uu dhigtay oo dastuurku waa kan waxay soo saareen liiskii ergooyinka oo ergo walba degaan soo jeediyey oo ergo walba maxaanku idhaahdayey xubnihii ergada shirweynaha waayeelkii iyo waxgaradkii degaankaasi xubnihii ay golaha dhexe usoo xusheen ayaa la soo saaray liiska imika halkan ku qorani marka hadhowto ayaanu dib baanu uga shaqayn doonaa waxaa ku yaala xubno fara badan oo ay iyagu bedeleen liiska guddiga fulinta ah oo ay yidhaahdeen waxa ansixiyey shirweynihii oo aanay taasina aanay jirin oo aan meelna lagu soo hadal qaadin waayo guddiga fulinta sida uu abuurmaayo article dhan oo dastuurkan ka tirsan ayaa ka hadlaya oo waxa la yidhi 7 xubnood ha lagu kordhiyo oo aan weliba loo codaynin qodobka 24aad ee dastuurka xisbiga kulmiye faqradiisa ta waxay qoraysaa awoodda gudoomiyaha ka hadlaysa wuxuu magacaabaa waa gudoomiyaha guddiga fulinta ee xisbiga gudoomiyuhu wuxuu magacaabaa xoghayayaasha guddiga fulinta lacag hayaha iyo xisaabiyaha xisbiga isagoo ka tilmaan qaadanaya go'aamada shirweynaha kuwa golaha dhexe iyo kuwa guddiga fulinta wuxuu jiheeyaa dhammaan howlaha xisbiga iyo siyaasadda guud ee xisbiga wuxuu mas'uul ka yahay hantida xisbiga wuxuu xisbiga kaga wakiil yahay heshiisyada xisbigu la galo dhinacyo kale xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wixii ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo isagu sheegay odayaal dhaqameedyo dhawaan yimid Somaliland inay soo dirtay dawladooda isla markaana ay u gogol xaadayaan sidii dib loogu soo celin lahaa dalkii la isku oran jiray Soomaali weyn wariyahayga Sakariya Xasan Raage Sakariya Sudaysi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya xisbiga mucaaradka ee ucud ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya oo ku gadaamnaa odayaal dhaqameedkii ka socday magaalada Muqdisho oo ay sheegeen inuu ahaayeen qaar u gogol xaadayay midnimada Soomaali weyn Naasir Yuusuf Qadax oo ay ku xigeenka xisbiga ucud oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri runtii waa wax laga xumaado waxa wad ogeeday maanta istaxil maantii la dabaaldegi muxuu ahaayay Somaliland yar weyn bal soo baxay ummadda Ilaahay halka marisay wax runtii muxuu ahaayay indhaha laga qarsan kara maaha wax weeyaan go'aan shacbi oo cid bedeli kartaana runtii ma jirto laakiin wax laga xumaada ninka dhan ee ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya muxuu ahaayay ra'iisul wasaaraha u ah runtii muxuu ahaayay hadallada aan fiicnayn ee aflagaadada ah ka soo baxaysa muxuu ahaayay ifan xitaa odayaasha halkay noogu yimid ee nabadda Somaliland eegay waxay Soomaaliland qabsatay eegay markii dambena ku dhawaaqday goonistaga Somaliland ka dhigay dad muxuu ahaayay union iyo muxuu ahaayay gobol kamid Soomaaliya tagay ka dhigay runtii hadaan u cidnahay hadalka ka soo baxay aad iyo aad baan u cambaareen hadalkan ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan wax jawaab ka bixin xukuumadda Soomaaliland isagoona yimi xilli ay odayaal dhaqameedkii taageereen jiritaanka iyo muqaddasnimada qaranka Soomaaliland maayirka koonfurta magaalada London oo isagu maalmahanba booqasho ku joogay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa maanta dalka dib uga laabtay isagoona telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV uga xog waramay waxyaalo kala duwan ay uu ku arkay dalka intii uu joogay maayirka magaalada Sotag ee koonfurta London Cabdilaahi Maxamed Badmaax ayaa maanta dalka ka anbabaxay kadib markii uu dhameystay booqasho rasmi ah
oo muddo 10 maalmood uu ku yimid dalka Soomaaliland maayarka oo maanta saxaafadda kula hadlayay qolka nasashada madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ka hor intii aanu dalka ka dhoofin ayaa si weyn ugu mahadnaqay guud ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuba sidii wanaagsaneed ee ay dalka ugu soo dhaweeyeen isla markaana ay u maamuseen muddadii uu joogay mudane badmaax maayarka Sotek ee koonfurta London waxa uu sheegay in muddadii uu dalka joogay uu meelo badan booqday isla markaana uu indhihiisa ku arkay horumar ballaaran oo dalka ka socda iyo bulsho u heelan in ay horumar sameeyaan hase yeeshee loo baahan yahay in dadaalka la sii labanlaabo oo caalamka la hiigsado marka uu xafiiskiisii ku noqdana uu ku dadaali doono sidii uu qayb uga soo qaadan lahaa horumarka ballaaran ee dalka ka socda iyo maqalba wadankii waan ku soo maray 3 jeer hore ayaan nimid marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo xukuumadda madaxweynaha iyo marwadiisa koowaad iyo madax ku-xigeenka iyo wasiirada iyo xukuumadda kale iyo dadweynaha Soomaaliland shacabka Soomaaliland jooga oo si wanaagsan si fiican soo dhaweeyay oo si wacan soo dhaweeyaan aad uga helay habeen walba soo weyn baa la tirinayo wala wareysanayo waxaan ku soo qaatay way arag iyo arrimo badan ayaa iga soo kordhay wadankii aan soo ineenay marka waxaan doonayaa horta inaan mahad u celiyo wadankayagiina arrimo badan buu baahan yahay sidaan ognahay xaqii dhaqaalihii iyo baahidayna badan tahay dadkeena qurbaha jooga waxaan doonaynaa inaan wadankayagii aan u shaqeyno oo arrimo badan oo imika marka noqdo aan ka qaatay wadankii oon ka soo fikiri doono ayaan imika wataa marka baxdintay insha Allah markaan soo noqdo kulaba meel heer baan ku gaari doonaa arrimihii la soo dhiibteen sidoo kale waxa isaguna saxaafadda maanta halkaasi kula hadlay Cabdi Fataax Saciid Axmed oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dhinaca hay'adaha caalamiga isagoo sheegay in muddadii oo maayarku dalka ku sugnaa ay kulano badan yeesheen markaana ay waxyaabo badan isla meel dhigeen una qorsheysan tahay in dhawaan oo hawl shaqo ku tago dalka boqortooyada Ingiriiska madaxweyne Axmed Maxamed Siraanyo marwada koowaad madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka golaha wasiirada iyo shacabka runtii si aad u ballaaran u soo dhaweeyay maayarka Sadak South East London ama xaafadda koonfur bari ee London runtii aad baan runtii u soo dhaweeyay waxyaabo badan oo laga sugayaa maayarka Abdullaahi markuu noqdo hawlo badan inuu ka dhaqaajo sababtoo ah waxa jireen waxaan doonayaa sameyna council ama forum Somaliland isku xilay 6 councilors golaha deegaanka laga soo doortay Ingiriiska inaan isku keenno kuwa ayuu ka hawlgalaa itiraaf raadintii leadna u qaataan ama horumar u noqdaan maayar Abdullaahi iyo councilorska kale 6 Somaliland iska ka soo jeeda maxaa haydo hawshan ay galaan fanaanada Sara Ciidid oo kamid ah fanaaniinta waaweyn ee reer Soomaaliland in badan ku maqneed wadamada qurbaha ayaa maanta ku soo laabatay dalka sidoo faafaynta mar kale uu noogu hayo wariyahayga Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi fanaanada Sara Ciidid oo kamid ah fanaaniinta reer Soomaaliland isla markaana degan wadanka Jarmalka ayaa maanta dalka dib ugu soo laabatay iyadoo ka soo degtay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxaana markay garoonka ka soo degtay wareysi gaar ah oo siinayay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV ay kaga warantay socdaalkeeda ay dalka ku timi waxayna tidhi aad ma hadsantiin walaal soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan ka imi wadanka Jarmalka waxaan soo maray wadanka Talyaaniga oo diyaaradu la fadhiisatay waxaan soo maray wadanka Ethiopia oo aan transit ku 3 saacadood intaasba waxay ahayn wadan aan ma aragtay ahayn wadankii aan u dhashay maanta waxaa sharaf ah inaan markii ugu horeysay ka soo degay airportka Hargeysa oo ah hoygii nabadda Hargeysa oo dib loo habeeyay sidoo kale fanaanada Sara Ciidid ayaa waxay amaantay waxqabadyada iyo dib-u-dhisyada dalka ka socda waxayna sidoo kale ay shacabka Soomaaliland ku amaantay siday markastaba uga qayb qaataan horumarka dalka waxaana hadaladeeda ka mid ahaa horumarka wadanka ay u geysteen dawladda iyo shacabka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin marka la eego wadamo badan oo maanta dawladda ka dhisan tahay oo aan burbur iyo dagaal gelin ayaa maanta inaga liita oon lahayn airportkan lahayn aan lahayn maaragtay horumarkan aynu maaragtay leenahay marka waxa weeyaan kalsooni weyn ayay siisay waxaan oo dhan oo arkayana waxa shaqaystay inta badan waa shacabka marka waxaan aad iyo aad aan u mahad celinayaa aad iyo aadna aan u amaanayaa
shicibka dadka reer Somaliland ee ku dadaala horumarka wadankooda iyo nabadda wadankooda meel nabad oolina ma timaado horumar ma yimaado marka dhalinyarada siiba waxaan aad iyo aad u maaragtay aan u dhiirigelinayaa dhalinyarada maanta ku jirta jaamacadaha Hargeysa jaamacadaha maxay ahayd wadanka meel walba ha ahaatee inay wadankooda ay ku dadaalaan sidii ay wax uga soo saari lahaayeen fanaanada Saara Caydid ayaa bilihii ugu dambeeyay qaadaysay isla markaana soo saartay heeso wadaniyiin ah oo ay dalka ku amaanayso warar kala daawadayaal idin haynana waxa kamid ah muwaadiniin reer Soomaaliland isla markaana hoygoodu ku yaala eriya shacabka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa ku eedeeyeen waxaan dadweynaha u sheegayaa dadweynaha Soomaaliland degan maanta in la soo weeraray oo kasna la soo weeraray maanta quraata in hin cisho horena la soo weeraray weerarku wuxuu ka taagan yahay annaga dhulka iyagan iyo beertayadani waxay dhisnaayeen 50 sano dariiq baa noo dhaxeeya dul shicib nooma dhawaa dul dawladda quraasay noo dhow dhulka dawladda guriga dawladda ku jirtay askarta weligeed ba ku jirtay aan yaraanteeda askarta ku aragtay dariiq baa noo dhaxeeya dariiqa waa dariiq weyn ee dadka barti markay tagay askartu ka bixi jirtay dariiqii ayaa la degay waa la iibsaday markii la iibsaday albaabadeedii hortada la iibsaday waa la degay dawladdu markaa way timid way ka baaran degtay waa laga heshiiyay waxa la yiraahdaa dariiq waxa noqdo dariiq hal baneeyo dariiqa 15 mitir ha noqdo buu markaa maayarka jiciire markaa joogay dariiqii lagama bana wadana wasiirka hawlaha guud ee markaa joogay waraaq buu ka soo sii daayay oo ahayd in 12 mitir la baneeyo maxaa dhacday ninka markaa iibsaday ninka uu koomba leeyahay iibsaday ayaa xoog iyo lacag ku muquuriyay dadkii dawladii hoos oo dhan dariiqii uu dhistay habeen buu dhistay guri buu ka saartay wuxuu ka saartay deer buu ka saartay wuxuu ka soo rabay 4 mitir iyo bar adduunka ma waxa lagu arkay dariiq dana baawur ka baxaan 4 mitir iyo bar laga reebo halka lagu arkay waralka lagu socdaa noloshan maxay tahay waxa laga faa'iideysan dadku intay maqeen guriyooga la hortago marka ma nolol baa taala cadaaladii meeday dawladii meeday dadkii talinayay meey salaamu calaykum anigoo Khadra Axmed waxaan shicibka Soomaaliland u sheegayaa maanta oo jimco tahay ina maxaa haydna la soo weeraray laba gaari oo buuxo ciidana soo weeraray oo maxaa hay wato Cabdi Madoowe gurigeegu soo weeraray oo soo cararay islaanta hooyadeeyo iska xanuunsanayso dhiigka lu qaaday duqdan basal islaanta la qaadiyo ka qabto xabad ba halka la igaga qabtay gurigeegu baa la isku soo shubay marka isku soo shubay walaalkay la eriyaday yaan walaalkay aad ka qabatay xabad ba halka qoriga dabadiisu halka igaga jiiday magana qaska ay haya haday madaxweyne Siraan iyo xukuumaddiisu karaamullah ilaaha karaamay wax ka qabtaan haday wax ka qaban waayaan laakiin waxa leeyahay la heeg in dawladda hoose iyo maayarka wax ka qabtaan weeyaan laba raga ay meeshooda ku celiyaan doo ku celiyaan wasiirka hawlaha guudna sharaf buu mudan yahay wadanka waa nin dhisa waa nin u shaqeeyo sharaf leh hawlaha guudna waa danta guud bay ka shaqeysaa laakiin dawladda hoose wadanka ma jirto waxa laga qabto bilis dawladda hoose la siiyana wax ma jirto waxa laga qabto shacab heeriyaan jooga anu waa madaxtooyadii waa madaxtii sensible wax kasta waan ka ridi karay laakiin wadankayga inaan dhibaateeyo waan diiday inaan madaxtooyada dhibaatay shacabka inaan dhibaateeyo waan diiday wadankaygaan iri waan dhisaya wixii igu dhacayna waan qaadanaya laakiin inaan casar u dhigo ballan baan ilaahay iyo ummadiisa buu qaaday hawlaha guud yaa xukunta shacab heeriya xageen iska soo galay dawladda hoose maayar xageen iska soo galay waan masiiladii baan degana qurac dheer ma xageen deganaano waa shacab heeriya masiiladii qurac dheeran degana masiilada dhexdeeda diirka ku xirxiraysay dadka masiiladii qurac waa shacab waa madaxtooyadii waa wasaaradda traffic public hawlaha guud baa shaqo kule dowga waan kala qaana sharciga ila TCL baran chiefay waka bila rafle waraaqaysan haya ya badisafki wassalaamu alaykum warahmatullah shacabka hannoolaa Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland hannoolaa xukuumadda Soomaaliland hannoolaa inamadeedana ilaahay soo hadeeyo yaa leeyahay dawladda hoose geesta kalena maraan isku daanay inaan ugla xiriirno isla markaana eedeymaha loo soo jeediyay aan wax ka weydiino maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa ayaan iyadu noo suurta gelin ciyaartan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay ciyaaryahanka Barkhad Maxamed Batuun oo kamid ah lafdhabarka naadiga Ifiso oo ka dhisan xaafadda Beepsi oo ciyaaryahankan maalinta bariya uu ambabaxay safar wadanka Mareykanka waxaana ciyaartan u dhaxaysa naadiyada Sooyaal iyo Ifiso waxaana ka qabsantay garoonka Treniska magaalada Hargeysa ciyaartan ayaa ahayd mid ay
soo buux dhaafiyeen taageerayaal iyo asxaab ciyaaryahanka barkhad oo dhammaantoodba u sagootinayay ciyaaryahanka mid sagootinta ku salaysan qiirada oo ay labada naadiba soo bandhigayeen ciyaariyi wanaag oo ay kasoo qayb galeen taageerayaal aad u tiro badani. Alaykum horta kulley barxadda weyn aad arkayso waxa la isku yimid xusitaanka amba gabagabeynta ama macsalaameynta ninka ciyaaryahanka qaaliga ee taagan barkhad maxamed batuun oo ah ciyaaryahan kooxda aad ugu qaaliya isla markaasina u soo xirxeedanaya dhanka qaaradda Yurub kaliya maaha markii ugu horeysay ay munaasabado noocan kooxdu qabato waa tii labaad isagana waxaan haweeneyda madaxweynaha ka dalka Malawi ayaa waxay si weyn ugu gacan saydhay doorashadii toddobaadkan ka dhacday dalkaasi iyadoona sheegtay in lagu shubtay doorashadaasi waxay sheegtay in natiijada qayb ka mid ah murashaxiintii qaar ay ku guuleysteen tiro ka badan codadkii u diiwaan gashanaa xarumaha qaarkood saraakiisha doorashooyinka dalka Malawi ayaa sheegay in nidaamka kombiyuutaradu ay xumaadeen isla markaana ay isticmaalayeen gacmahooda iyo emailo gudida doorashooyinka dalka Malawi ayaa ku gacan saydhay hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Mrs. Fana isla markaana ay ku sheegeen in hadalkaasi aanay waxba ka jirin ilaa hadeer lama oga halka ay ku dambeyn doonto khilaafka weyn ee ka dhaxurtay doorashada ka dhacday dalkaasi Malawi oo labada dhinacba ay aad ugu muransan yihiin wadamada Ruushka iyo China ayaa waxay si weyn ugu gacan saareen qaraarka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku doonayaan inta cadiyadii ka dhacay dalka Syria lagu wareejiyay maxkamadda dambiyada caalamiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ICC wadamada Russia iyo China ayaa codfeeto ku diiday qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay inta cadiyada dagaalka wadanka Syria lagu wareejiyay maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee ICC tani waa markii afraad ee labada dal ay isticmaalaan codka veto si ay uga hortagaan tallaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay doonaya inuu ku qaado Syria tan iyo markii ay dalkaasi colaado ka bilaamatay sanadii 2011 qaraarkan ayaa waxaa soo diyaariyay Faransiiska waxaana lagu dhaleeciyay xadgudubyada baahsan ee ka dhanka ah aadamiga ee ay ku kacayaan mas'uuliyiinta wadanka Syria ee maleeshiyaadka dawladda taageersan iyo waliba kuwa kooxaha ee ka soo horjeeda wadankaasi danjiraha Russia ee qaramada midoobay Vitali Charkin ayaa qaraarku mid si adkeynaya hadaf kala doonaya in xal siyaasadeed loogu helo xasaradaha ka taagan wadankaasi Syria wadanka Mareykanka ayaa walaac weyn ka muujiyay awoodda militari ee dawladda dalka Thailand lagala wareegay Mareykanka ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay tallaabada militariga ay kula wareegeen awoodaha dawladda wadankaasi Thailand waxaana war ay soo saartay xukuumadda wadanka Washington lagu sheegay in aanay jirin sabab loo sameeyo afkambi xogayaha arrimaha dibadda wadanka Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay wararka sheegaya hogaamiyayaal sare oo siyaasadeed ay xireen militariga wadanka Thailand waxaana ku baaqay in si degdeg ah loo soo daayo isla markaasna la soo celiyo hogaankii dimuqraadiyadeed ee wadankaasi ka jiray Kerry waxa kale oo uu ku digay in afkambi military uu saameyn xun ku yeelan doono xiriirka Mareykanka iyo militariga wadankaasi Thailand waxaana hadalkan sheegay saacado kadib markii taliyaha guud ee ciidamada General Prayut Chan-o-cha uu telefishinka kaga dhawaaqay afkambi ay sameeyeen 2 maalmood kadib markii ay ku dhawaaqeen xukunka degdega ah waxa uu sheegay in tallaabada lagu hakiyay dastuurka looga gon leeyahay in lagu soo celiyo amarka iyo kala dambeynta horeyna loogu wadayo isbedelka siyaasadeed waxa kale oo General Chan-o-cha ku amray ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka iyo golihiisa wasiirada in ay iska xadtaliska ciidamada wadankaasi Thailand daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lawdilhaantii meel kasta aad joogtaan intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay oo aad ka daawanayseen shaashada telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadayaal warka waxaad ila socotiin anigoo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed Fantastic anigii akhyaartii kale igala qayb qaatay tibintii iyo soo diyaarinta warka waa dhamaantii waxaad kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh